بسم الله مala socota marka laga soo tago qalalista uu qalalay wabiga Furaat iyo wabiyada ka soo burqaday saxaraha Sacuudiga inay jiraan calaamado kale oo tusinayo calaamadaha qiyaamo oo ay dadka ku baraarugsaneen oo ay kamid tahay biyaha ka sii dhamaanaya Buhayrat Tabariya oo afka qalaad loo yaqaano Sea of Galilee. haddaba Sea of Galilee maxay tahay? Sea of Galilee ama Buhayrat Tabariya waxay ku taalaa حدود ودحيسة جوردن iyo dhulka Falastiin ee muslimiinta laga haysto. Buhayrat Tabariya saxaabada iyo waagi nabiga uu noolaa maxaa laga yiri? Buhayrat Tabariya saxaabada hadda ka hor ayagoo badda ku safrayaan oo badda dhex socdaan ay ku habaabeen badda waxay la kulmeen Masiixu Dajaal. Masiixu Dajaalna su'aalo badan oo meelo badan taabanaya weydiiyay oo ay kamid tahay soo bixida nabiga inuu haajiray oo Madiina uu haajiray iyo su'aalo kale oo badan. su'aalaha uu weydiiyay waxa kamid ahaa biyo inay ku jiraan in kala Buhayrat Tabariya waxayna ku yiraahdeen biyo way ka buuxaan oo way ku jiraan. dabcan waagaas biyo way ka buuxeen laakiin hadda la joogo Buhayrat Tabariya uu qalalayaa oo waaba sii qalalay sababtoo ah 10 sano ka hor ayay qayladaan ka soo yeertay idaacadaha caalamiga sida CNN, BBC iyo idaacado kale oo maaragtay international ah oo ay dhahayaan Buhayrat Tabariya oo si qalalaya biyihiisa hoos bay u sii dhacayaan. marka ay saas u soo calaacalayaan ama ay u soo qayladaaminayaan waxay ahayd 10 sano ka hor laakiin hadda oo la joogo Buhayrat Tabariya xaaladday ku sugan tahay ka waran bal isweydiiday su'aashaas. Buhayrat Tabariya biyaha way ka sii dhamaanayaan oo way sii qalaleen. qalalista uu qalalayana arrimo badan sababayo oo ay kamid tahay irrigation system ka ay isticmaalaan Yahuuda oo beerta ay ku waraabsadaan ayagoo og oo kasna u yeelayo inay biyaha Buhayrat Tabariya inay ka dhameeyaan midaas oo ay ula jeedaan in uu bixi doono marka ay biyaha ka qalajiyaan wabigan Masiix kaas oo ah Masiixu Dajaal. annagana uu noo soo bixi doono Masiixna saxda ah oo muslimnimada aan u aaminsanahay oo ah Nabi Ciise. Yahuuda wabigan ay qalajinayaan waxa ay ula daynayihiin in u soo baxo Masiixooda ama badbaadiyahooda kaas ay u yaqaanaan Masiixu Dajaal. Buhayrat Tabariya markuu qalalo maxaa bixi doono soo bixi doono soo bixida Imaam Mahdi iyo qalalista Buhayrat Tabariya nabigeena wuxuu yiri ka haateeni markii biyaha saa u sii qalalaan Imaam Mahdi uu soo baxaya. Imaam Mahdi soo bixistiisa maxaa sababayo wabigaas qalalaya iyo dagaal sokeeye oo ka dhici doona Sacuudiga ayuu ku soo baxaya. dagaalkaas oo haddaba qarka aan u saaranahay dagaalkaas sokeeyahana wuxuu u dhaxayn doona dhaxal sugiyaal haddaba xirxiran iyo dhaxal sugaha hadda ilka haya ayuu dagaalkaas inta ka dhaxayn doona oo haddaba qarka u saaran inuu bilowdo. dagaalka markuu bilowdo kadib uu Imaam Mahdi soo baxaya. Imaam Mahdi markuu soo baxo wuxuu ahaan doona xariiriyaha xariirin doona calaamadaha waaweyn oo qiyaamaha iyo calaamadaha yaryar. Imaam Mahdi soo bixistiisa waxa ku sii xigi doono calaamadihii kale oo waaweynaa oo qiyaama. calaamadaha qiyaamo oo waaweynaa markay bilowdaan sidaa bay iskugu xariiri doonaan sida tusbax la gooyo camal bay iskugu daba xigsan doonaan. haddana meel dheerna ma jiraan Buhayrat Tabariya wuu qalalay wabiga kalena wuu qalalay Furaat. marka hadda wax kale oo noo dhiman ma lahan badda iyo waxa isku ognahay in Ilaahay ku noqono. Assalaamu calaykum.